يدي نديسي لحيا لباتنك جوا دور ما لولاني لحديسا دور ما لبني قدر اليوم لبعمد أودي واتي مركاسي لبدا قبل أي مدوبين iyadoo xilligaas runtii xitaa aan dhihi karno gumeystihii maadaama uu kala qaybiyay Soomaaliya xilligaas marka qayb walba oo hadda Somaliland ama gobolada waqooyi ay kamid tahay waxa xilligaas u fududeed inay go'aan laakiin dadkii xilligaas jiray waxa dareemaysaa inay markaasi u cuntami weysay kala qaybsanaantii gumeystuhu uu waday ay doorbideen inay Soomaali markaasi mid noqdaan oo la midoobo hal calan la yeesho la soo yimaado tii markaasi dhalisay in kowda July ama kowda Luulyo markaasi guud ahaan labada gobol ee waaweyn ee Koonfur iyo Waqooyi ay midoobeen insha Allah waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo sanadaha soo aadan kowda Luulyo ama kowda July in mar kale aan dib u arki doono in markaasi goboladii Waqooyi iyo Koonfur ama Soomaaliya oo markaasi midooday hadduu Ilaahay yiraahdo maadaama anaga xilligaas aan runtii way joog aanan u soo ahayn oo aan jiilkii dambanahay kollaytaad sidaan la soconana waxaa jira dab u heshiisiin ama dawladda hadda jirto hogaamiyo mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay fureen albaabadii ugu macquulsanaa ee markaasi ama xal loogu heli karo in la isku soo dhawaado ama markaasi Soomaali ay midoobaan oo markaasi ay dib noogu yimaadaan walaalaheen gobolada Waqooyi ama Somaliland insha Allah marka muhiimadeenu waxa waaye maadaama xaaladda COVID-19 lagu jiro oo de munaasabadihii waaweyn ee naga mudnaayeen toddobaadkan xurriyadda aanan sameyn karin inaan ugu yaraan si kooban aan waxa weeyaan maalmaheena markaasi aan weyneysano aan u xusno maadaama Uganda ay ka mid tahay wadamada jaalidaha Soomaaliyeed ay ku xogan yihiin ay joogaan insha Allah ka arday ahaan mar walba diyaar ah u nahay maalmaheena qarannimadeena ku weyn inaan runtii si kastoo ay tahay baan xasuusnaan insha Allah